maxkamadda magaalada Hargeysa waxay dhawaan ku xukuntay wariye Ordon oo samafalaa muddo 2 sano dabcan qaybta garsoorka soo galaya iyo shuruudii wariye Ordon xarigiisaasi ka gudoomiyahan sida aragtaa maxaase sababay in muddo 2 sano ah lagu xukumay inuu inta Muqdisho tagay haddana ka soo noqday aad bay ula xidhiidhaa su-aashii hore horta marka hore anagu maadaama aanu imika garsoore ahay oo maxkamad ka yimi dadka dhex baan u nahay Ordon markaan si background ama brief yaro fiican adigi iyo dadweynaha daawanaya ka siiyo waa la eedeeyay booliska qabtay dadna waa la soo eedeeyay waxa lagu eedeeyay dadku waxay isku khaldayaan intaan halkan imika joogay London intaan UK joogay baa go'aan kala soo saaray maxkamadda waxa lagu soo eedeeyay dambi la xiriira saxaafadda laguma soo eeday in wax qoray ama wax saxaafadda la xiriira waxa lagu soo eedeeyay dambi la xiriira inuu qarannimada ka soo horjeedo oo Ordon oo kale imika de maxkamad furan buu helay wuu isdifaacay waa maxkamada aan ku sheegay furnayd mala 200 qof in ku dhooba dhageysanayay waxa la wixii cadeymay loo haystay wala soo bandhigay video xataa la soo bandhigay marka ninka Ordon oo kale waxa lagu soo eedeeyay dambiga la yiraahdo waa dambiga qarannimada ka soo horjeeda oo waxa lagu haystay in tanaan ku sheegayo inaanu Muqdisho tagay lagu haysan ama Muqdisho booqday lagu haysan inuu waday abaabul arinta qarannimada xeerku mamnuucay inuu dadku ku dhiirigelinayo qaramada ka hor yimaadaan inay Soomaaliland define gareeyaan inuu dadka kiciyo waliba waxa kale oo raacaysay oo lagu sidii lagu soo eedeeyay sidii lagu soo eedeeyay waxa kale oo raacaysay in wadogto imika adduunyadu colaadaha ka jira nabadii baa la dhisaya wadamada jaarka wuxuu doono difference-kooda ha noqdo waa inay si fiican wada noolaadaan Soomaad fahmin abaabulo badan oo inuu galay inuu dadka ku kicinayo wadamo jaarka oo ku kicinayay marka Muqdisho tagay ama cid buu jeclaaday ama meel buu booqday eedii la hor keenay maxkamadda ma ahayn waxay eed doona video la soo bandhigay isagoo hadlaaya isagoo abaabul galaya isagoo qodobo qarannimada ka soo jeeda dabad anagu hadaan maxkamadda maxaan sameeynay booliiskii iyo xiraanta waxaan ku nidhi cadeeya isagana waxaan ku nidhi lawyer la isdifaac dhowr lawyer ba difaacay maal intaasoo fadhiba dacwadiisa la qabtay maxkamaddu way furnayd intaasoo observer ba daawanayay cadaymi la soo bandhigay aanu halkan baan joogay gudoomiyaha waliba maxkamadda gobolka Hargeysa maadaama dacwad xasaasi ah gudoomiyaha maxkamadda gobolka Hargeysa dacwada laftigiisu garsoore ka ah dhinac kasta uu ka eegay cadaymi baa la dhageystay waa la eegay waa lagu helay marka laguma helin sida nimanka ama loo dhigay ama u muuqato waxa lagu helay ma aha Muqdisho booqday ma ama Muqdisho tagay ba wixii lagu eedeynayay laakiin dambigii state ka soo horjeeday qarannimada Soomaaliland ka soo horjeeday ee dadka uu kicinayay uu lahaa qarannimada diida uu lahaa ma garanaysaa ka wadamada jaarka dadka ku abaabulay uu lahaa maxay heeday ayaa lagu helay maxaa imika u furan maxkamadiisu may dhamaan rafcaan baa u furan hadii aanu ku qanacsanayn maxkamadda heerka labaad ee gobolka Hargeysa ayay rafcaan u qaadanay ay hob inay looyiradiisuna u qaadeen illa maxkamadda sare uu soo gaari kara wali dagaal sharci baa u furan laakiin horta anagu maadaama maxkamad ahayn eeda lagu soo eedeeyay eedaas ahayd ma ahayn Muqdisho mutagi ma ahayn waxa ay dambi ka dhana qarannimada Soomaaliland laakiin imika maxkamadda gobolka Hargeysa dambigii bay ku heshay isna xaq rafcaan buu leeyahay dambiga lagu eedeeyna ma aha Muqdisho tagay ma aha cid buu jeclaaday ma aha xitaa dadka qaar baa xidhaadeen farmaajo amaanay xitaa tama waa crime ka soo jeeday qadiyada iyo qarannimada Soomaaliland baa lagu soo eedeeyay cadayma lagu soo bandhigay saashay maxkamaddu way furnayd waa lagu helay imika wuxuu leeyahay xaq rafcaan ilaa maxkamadda sare u socon kara in kasta xukunku dhacay haddana rafcaan qaadan kara